السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال هلكن maanta waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa ama aynu ku garfayn doonaa faa'iidada ay leedahay wax akhrisku annagoo ka fiirinayna dhinac walba haday noqoto kitaabka Quraanka Kariimka iyo walibana asxaabul cilmi waxay ka yiraahdeen wax akhriska. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إلهي وحا قرآنك سكوليهي اقرأ نبي محمد آخر باسم ربك الذي خلق مقع به عذيك أبورتي خلق الإنسان من علق كأصل بين آدم كأبوري حبين ير أم عدود ير اقرأ وربك الأكرم آخري ربك أذيك كراميي الذي علم بالقلم كاس أو بريقانك علم الإنسان ما لم يعلم بين آدم كين بري وحاي سنقون هذا بالكاس وحا إنو كأوغان كرنا فإذوين كأوليه وح أخرسكم sababtuna wax kala maaha marka soo aad wax akhrisid waxa ogsoonataa inaad wax cusub aad ogaanaysid. haddaba daawadu ma ogsoon tahay in wax qoridu ama wax akhrintu ay tahay furaha noloshaada. maanta dunida tan horumarka la gaaray wax kale furo uma uusan ahayn ee waxa aan furaha u hayay waa wax la qoray ama wax la akhriyay midaas maankaaga ku hay. haddii aan meel low kaaga soo qabto maahmaah afqalaad ayaa waxay tiraahdaa read more to learn more. in badan akhri si aad in badan aad u ogaatid. haddaba hadal badan haan ma buuxshee noqo qof markasta wax akhriya waxna qora. wassalaamu calaykum.